iyo lafdhabarkii dadka goboladan dhexe deganna in aan maanta hor joogo muddana waa u ciil qaba inaad hor imaado markaad gaalkacay joogtaan ama dhulka aad joogtaan horta maxaa laydin yaqaanaa ma sacdaa laydin yaqaanaa ma habar gidiraa laydin yaqaanaa ma hawiyaa laydin yaqaanaa horta qolada keliya ee meeshaan degan ee magac qabiil loo yaqaana idinka waay waa nasiib darra marka inaad meeshaas ka hoos martaan waa hub meesha yaalla horta waxaan u gartay inay dhoolatus yihiin islaantii waxay tiri bawdadan islaantii gabadhayda looguma dhali waynina hagaraa ku jirto saacadoo ma hagaraa idinku jirta maanta waxaan shabaab lagu uriyay saas oo ahaa waxaa la yidhi ninkii geeda inta tiri qurac ka tegay geeda ma tirin dagaalaa hawiya ku jira dowlad Soomaaliyeed ku jirta saacad kuma jiro horta dagaalkaas inaan lagu jiro media waxaan rabaa markii dabeeciin aniga hadalkayga aan faafreebaya macna ma yeesho hal liba arkaysan ma gogoltaa la yiri marka بعدما مدحوينا وقرب تاجين واحد بدنا ديل هاي يعني واحد ديل ما أنا كبقى كودي دجال الله وسوق الشين وأنا سوق اللي جرتين وإحنا من السنة هاي دجال كتسوق سوق الشين حقوقها ميت كأمات كجرتنا كوي هرطنا وكحق سنة هذا كورواني كده هلا دول إجماع مغنى تري ضدك magaciina lagu sheego dhulkii ka maqan soo idinkeeda kama maqan Xuseen Caydiida waxaan maqli jiray dadkan dadkii odayga waay war Xuseen ma ka garasho laadeen hawiyahan maana dadkiin ahayn dadkan waa xoreey kartiin xoreeya ilaahay idinku dhaarshay oo idinka kaligiin hays xoreeynina waxaanu zuuga iyo waxaanu dabajeexa iyo waxaanu wiila looma baahna haddii shaab meesha laga saaray inaad sii haysataan madaxweyne sacad ha u xisaabin qabaal sida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ba uusan qabiil u ahayn ayaana sacad qabiil ugu xisaabi karin maahmaahiyada qaarkood fagaar lagu ma sheego laakiin markii meesheeda leedahay wax loo dan leeyahay waa la sheegaa nin ceyra oo aan xoolo badan lahayn hadda koor waxa la yiri islaamo badan oo guursaday ninkuna islaamaha badan waa rabiyaa la fiish inuu dhaqaashadana waa rabiyaa islaantiina 4 neef ama 10 neef u xiray reer 10 neef lana waa garan kartaa inta ka irmaanaan karta saddex ama laba ka irmaanaan karta intaasna dacaana la safriyo ama la cabo ama ilma la siiyo ama wax loo goorsaato kama kala go'aan gaar wuxuu yiri dhiilu meel dhigay islaantii buuxisa habeenkaas ay yarto yiri mana biirayso waa loo yahay aanu waa baqaay ama waa la gadoomo waxba ka halaabay Soomaa xogaa intaas waa ku ruux dheerayna marka habeenkii dabamidaasi wax ugu waday hadii buuxsamaysay tiri baalku dhiish waa buuxda iyo maaday tiri waa fiiri waxay tiri dhiishan waa barow yiri war meeshan dad waaweyn wax ku kala tago uma dhinee kaalid waxa la sheegay madaxweyne saacad dhowr marood saragteen زوجة ضيعتربا باورتانا سانا وحنا سان إن تري رهيب البايس ودان إسود إن تري سعادتك لديه لا رهيب البايس ودان إسود ما هنا أذوق وحدة وين كوكلا تجي لبدين بعيدين من ساعة دجال كجيل ما أنت نواجهك تحديث أماك إلهي كاني وحي ما تكذب بها أنا واحد ساعد وقف لنا ولبا أنا شخصيا واحد جعل أنا ماشي كتجين أيوة أنا حرينين حريري وأنا كلام dad iyo waxaan rabaa madaxweynahan u sheego ciidan Soomaaliyeed oo kaligiis guuleysan kara ma jiro qabiil Soomaaliyeed oo kaligiis guuleysan kara ma jiro kaliya guushu wax imaanaysaa ciidanka iyo dadka oo wada jira markay dagaalka galaan intaasna waa dhineed maantana waa la taagan yahay waxaan aaminsanahay dagaalku hadda ka hor hadii la dhigi jiray dawladdu dhab maya reehbal dhabay ma ka tahay dagaalku inuu dhab yahay ayaan jeclahay بعدما مدحوينه ماشان وتاجينها أو مدحوين الصوماليين أو مدحوين استيدا وحاس أو هو أو واحد كسكن عند كان أوهر تاجينها ريسك كوين وقاعد لها المارك إسكمان السوق قاعد يقول صورنا ماشان وما ساس أنا جعله
xildhibaanada iyo dadka tuutayaasha watana waxaan jeclahay laga sheegay ugu soo wareynaysa ka hayne wuxuu in dhab yihiin aan jeclahay in dhab naga yihiin in kalena waxaan garan doonaa saamaha madaxweynuhu markay noqdaan iyo isbeddelka dhulka ka dhaca waxaan jeclahay reer hebel shabaabku waa mid hal intanti waaye hal koox waaye inteena kale ama dawlad ahaano ama qabiil ahaano ama qolo kasta ama shacab ahaana hal mid inaan noqonana la ka rabaa oo shabaabkay jooga wasil oo soo weeraraya iyo kan jooga kunyo barow isku mid inuu naga noqdo madaxweyne maantay reerka waxa la yiri khayr ma la jiri ma wax leeyahay laakiin rakas ka soo baxshaa la yahay dadkan risqa reerku risq ma laane rag soo saaru rabaa dadkan madaxweyne shabaab waa ka adag yihiin waan xoray karaan madax howlgeliso horgashay u baahan tahay waxaan rajaynayaa inaad noqoto khayran isku ognahay